warkeena ugu dambeeya aynu u talowne dhakhaatiirta ayagu dhakhaatiir barteen daawooyinka dabiiciga ah ayaa waxa ay gaareen magaalada Beledweyne sida uu wariyahayaga Cabdiqaadir Nadaara oo Beledweyne inooga soo waramaya uu warkaasi inoogu eegayo. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ku soo badanaya xarumaha Quraan saarka iyo waliba midaawaadka dhirta. xarunta Quraan saarka iyo midaawaadka dhirta Baytu Shifa oo ku taal xaafadda Buundaweyn ee magaalada Beledweyne ayaa waxa soo gaaray culamo u diin iyo dhaqaatiir ka timid magaalada Muqdisho. maamulaha xarunta Quraan saarka iyo midaawaadka dhirta Baytu Shifa Macallin Cabdullaahi Faarax Tifow ayaa bogaadiyay imaanshaha culamo u diinka iyo dhaqaatiirta isagoona sheegay in bulshada ay u qaban doonaan adeegyo kala duwan. ilaahay subhanahu wa ta'ala baad alxamdulillah waxaan u mahadcelinayaa walaalaha TV-ga oo kamid yahay walaalkeen Nadaara oo maanta insha Allah ta'ala inuu soo booqday xarunta Quraan saarka iyo midaawaadka dhirta Baytu Shifa. waxaan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala anigoo ah Macallin Cabdullaahi Faarax Tifow maashaan oo xarunta Baytu Shifa maamulaheeda guud ah waxayna soo booqatay walaalo culimo ah oo isugu jira dhakhaatiir iyo culimo dhakhaatiir oo cilaajka ah. waxaa kamid ah culimadaasna soo booqatay walaalkeen Maxamed Dinax oo ka shaqeeya xarunta magaalada Muqdisho ee Dibir Rahma iyo walaalkeen Cabdullaahi Mukhtaar Xasan oo asna kamid ah culimada ka howlgasha Dibir Rahma magaalada Muqdisho insha Allah ta'ala ayagoo maantay magaalada Beledweyne aan ku soo dhaweynay walaalaha oo aad u fara badnaa baahi jirta awgeed magaalada Beledweyne markii aan aragnay dadkii xanuunada bukaanada haya cilaajka jinka sixirka xasadka walaalahaas ayaan u dalabnay insha Allah ta'ala waxayna ka howlgali doonaan insha Allah ta'ala magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan. Cabdullaahi Mukhtaar Xasan iyo Maxamed Dinax oo kamid ah culamo u diinka iyo dhaqaatiirta soo gaartay magaalada Beledweyne isla markaasina ka howlgali doonta xarunta Quraan saarka iyo midaawaadka dhirta Baytu Shifa ayaa ka waramaya waxyaabaha ay bulshada u qaban doonaan. inagoo ku soo degnay xarunta Baytu Shifa oo ah xarun hore u shaqeynaysay xarunta walaalkeen Macallin Cabdullaahi Xasan Tifow xaruntaas oo muddo hore u shaqeynaysay Baytu Shifa inaga waxaan ka howlgalaynaa xarun ku taal magaalada Muqdisho taasoo leeyahay Dibir Rahma hadduu Allah awood la ogolaado waxaan u nimid halkan inaan ka daweyno xanuunada dadka la ildaran xanuunada isha xasadka jinka sixirka dabashi iyo musubiyanada runtii quraanka waa dawo ka sareysa kitaabka Ilaahay ma jirto nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam man lam yashi bil qur'ani fala shifaa lah qofka quraanka ku caafimaadin caafimaadka lama leh runtii waqtiga ah haysana waa ciriiri waqtigu nagu yar yahay waxaan doonaynaa dadka hadda diiwaan gashan iyo kuwa hadda imaan doonaba insha Allah ta'ala inaan qaabilno waxaan xasuusinaynaa dadka una sheegaynaa dadka runtii yaani lixaadkooda u soo dhameystirneen inaan wax qarash la weydiin doonin sida dadka gacmaha la dadka lugaha la dadka indhaha la inaan wax qarash laga qaadi doonin xarunta ifiri ku imaan doonaan firiina lagu cilaajin doono insha Allah daawadooda iyo Quraan saarkooda insha Allah ta'ala runtii waxaan ugu bishaareynaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne hadduu Allah awood la ogolaado maalmaha soo socdo waxaan jecelnahay hadduu Allah awood la raali ka noqdo inaan ka hirgelino magaalada Beledweyne xarun dhaqan celin taasoo lagu dhaqan celinayo dadka balwada iyo daraagiska ay la fogaadeen isla markaana looga caalway waxbarashada runtii xarumahan waxa ay ku yaalaan magaalada Muqdisho Dibir Rahma waxa ku yaalaan magaalada Muqdisho waxa ku taal 3 farac aan ka furnay waxa furnay markii uu horeysay bishii 10aad 2014 waxa ka hirgelinay magaalada Muqdisho iyagoo hadda xarumaheena ay ku jiraan 3 xarumood markii la isku daro dad gaarayo 185 ruux waxaan jeclaysanay walaalo badan naga codsadeen halkan in laga furo xarun kale oo la jaal ah xaruntaas anagoo ka howlgalna maarata magaalada Muqdisho khaasatan aniga waxaan ka howlgalaa markiis Shifaa Usudur wal Abdaan la yiraahdo oo muddo sanooyin aan maarata meeshaan aan Quraan saarkaas aan ka waday insha Allah ta'ala maalmahan nagu soo aadana waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ka howlgalno xarunta Baytu Shifa insha Allah ta'ala dadka walaalaheen waxaan u sheegaynaa in maarata ay soo gaaraan dadka u yimaado walaalahooda inay ka faa'iideystaan fursadda insha Allah ta'ala. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim Cabdiqaadir Nadaara CNN Somali TV Beledweyne.